safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagayo magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle saacadaha soo socda ayaa waxa ka soo kordhayaan xogo dheeraad ah iyadoona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud intuu halkaasi ku sugan yahay madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle uu kala hadli doono doorashada la filayo in halkaasi ka dhacdo. Hirshabelle waxaa la filayaa in 20ka bishan June ee maalmaha nagu soo aadan inay ka qabsoonto doorashada golayaasha deegaanka iyo sidoo kale golaha deegaanka taasoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la soo warinayo inta uu halkaasi ku sugan yahay inuu kala hadlo madaxda Hirshabelle. magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa ku sii qulqulaya wafuud hordhac u ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoona halkaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka furi doono mashaariic horumarineed oo deegaanadaasi laga hirgeliyay. safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee halkaasi uu ku tagayo ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli halkaasi ay ka jiraan howlgallo ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku baadigoobayaan ama ay ku aruurinayaan hubka sharci darrada ee halkaasi lagu haysto. toddobaadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ayay ka socdeen hub ururinta sidoo kalena waxa uu gaaray daafaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dowlad goboleedka Hirshabelle halkaas oo ay ka socdaan howlgallo lagu aruurinayo hubka sharci darrada ah. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa la sheegay in uu kulamo la qaadan doono siyaasiyiinta iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee Hirshabelle si uu ula hadlo xaaladaha halkaasi ka jira. sidoo kale waxaa banaanka u soo baxay khilaaf xooggan oo u dhaxeeya madaxda ugu sareysa ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa Yuusuf Dabageed. arrintan ayaa waxaa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la yeelan doono xaaladda halkaasi ka jirtana uu deji doono. ujeedka ugu weyn ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaasi u gaaraya ayaa waxa ay tahay in uu dardargeliyo doorashada la filayo in halkaasi ay ka bilaabato iyo sidoo kale in Cali Guudlaabe uu kala hadlo dardargelinta doorashadaasi oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in doorasho qof iyo cod ah uu ka hirgeliyo deegaanada Hirshabelle. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkiisa ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka ay tahay mid aad u cakuran sidoo kale mucaaradkana magaalada Muqdisho ay ka wadaan kulamo ay uga soo horjeedaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo ay ku eedeeyeen in muddaxileedkiisa uu ilaalay. wixii warar ka soo kordha safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale kulamada gaargaarka uu la yeelan doono madaxda halkaasi ka arimisa iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan waxaad ku daawan doontaan wararkeena soo socda.